Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Afarkeena maanta waa qamadi isku karis iyo bariis isku karis. Maasha Allah tabaarakallah. Dad badan asxaabteena ka mid ah wiilal iyo gabdho iskugu jiraan ayaa waxay naga soo codsadeen ama waxay qoraal ii soo qoreen qamadi isku karis sidee loo kariyaa. Haddaba kaaliya oo ilaa arka qamadigan isku kariska sida loo kariyo iyo waxyaalaha la isku daro. Maasha Allah tabaarakallah. Khaasatan wiilasha aad iyo aad qamadiga ugu badnaay ay dhaheen qamadiga mar walba waxaan aragnaa qamadi banaanka loola fadhiyo biyo kaliya lagu soo kariyey laakiin asagoo maraq leh hilibna leh isku karis ah ma laga dhigan karaa. Marka maxaa diidaya hadaad adiga hilibkaasi waxaas aad haysatid, anigana waan kuu fududeynayaa sida loo kariyo. Haddana waxaanoo bilaaban doona cashirkeena. Soo dhawaaw step by step, yuusan ku dhaafin. Cashirkan muhiim uu ku yahay. Maasha Allah tabaarakallah. qamadigan aadka u nafaqaysan, haddaad dhahay ku jirtid iyo haddaadan dhahay ku jirinba labadaba wuu ku anfacayaa. Waa cunto aad iyo aad caafimaadkiisa u heer sareysa. Maasha Allah tabaarakallah. dhadhankiisana aad u fiican. daawasha wacan. Haddana waxaan daaranay dibkeena, digsigaas yar ayaa soo qaadanay. Maasha Allah tabaarakallah. saliid yar oo kusoo shubanay, xoogaha basal ah soo jarjaratay ilaa iyo 3 xabo oo basal ah. maxaa yeelay basasha badan waxay kaa saacidaysaa cunto walbo aad sameynaysid inuu dhadhan fiican uu siiyo. iyo nus kiilo hilib ah oo hilib ari ah. Maasha Allah tabaarakallah. markaas saas iskugu shiisid kadib waxaad had diyaarsanaysaa kow maraqii. hadda waxaa ku darsaday xoogaha xawaaji yar iyo garaamo masala iyo cusbo yar aan ku darsaday. haddana waxaan soo shiidanayaa yaanyo iyo tomato paste ama yaanyo shishiida rabaa inaan kusoo daro. hadda wax yar halka haddoo yaanyo shishiida ama kalkan bacbaca haddaa haysatidna hal bac ama 2 bacaad kusoo shubanaysaa oo yaanyo shishiid ah. kadibna yaanyadii shiidatay oo qalaadada kusoo shiidatay. Maasha Allah tabaarakallah. oo maraq ayaad ka samaysanaysaa hilibka. muhiimada waa inaad maraqa ka samaysatid yaanyada iyo hilibka ee isdhexgalaan oo maraq fiican suugo fiican oo ka imaado meesha. Maasha Allah tabaarakallah. yaanyada markay karto sidaas isku bedelaysaa, gaduudkaas isku bedelaysaa. Maasha Allah. kadibna waxaa ku darsanaysaa kabsar caleen iyo toon oo soo shiiday ama isku soo tuntay iyo xoogaha yar oo garam masala ama xawaajiga aad haysatid. wax walbo aad haysatid. haddaadan haysanin xawaaji maraq digaag waxaas kusoo darsanaysaa. Maasha Allah tabaarakallah. qamadii waa ujeedaa. qamadiga kow biyaad kusoo karsanaysaa asagoo ceeriina kuma soo shubeysid. qamadiga asagoo biyo ku karsatay oo ku diyaarsan yahay maraqiina aad diyaarsanaysaa. maraqa markaas u diyaarsatid maasha Allah tabaarakallah waad isku daraysaa. just wuxuu rabaa inay isdhexgalaan oo wax yar maraqaas uu ku guursado dhadhankana lafaha uu ka galo. Maasha Allah tabaarakallah. waa ujeedaa qadar adiga 5 daqiiqo oo dibka yar u gaabiyey. markaas sidaan oo lagu soo baxay qamadi aadan ka filaysanaynin. Maasha Allah tabaarakallah. markuu garaacad yahay iyo markuu isku karis yahayna maasha Allah isku mid ma ahan. waxaa haddana meesha ka maqneen xoogaha yar barbaroonigaas intuu cuntada dibka saaran yahay ma saaraysid. dibka markaad damisid oo cuntada kulul yahay waxaa laga rabaa bis carfis ayaa laga rabaa. maxaa yeelay markaad dusha aad ugu dartid wuxuu siinayaa cuntada carfis nooc kale ah, caraf nooc kale ah ayuu siinayaa. Maasha Allah tabaarakallah. cuntadan wuxuu noqonayaa cunto mid soo jiidasho leh, aad iyo aad indhahana ugu fiican, caraftana sankana ugu fiican. Maasha Allah tabaarakallah. haddii afka la sii geliyana afkana aad iyo aad ugu sii dhadhankiisana aad u fiican yahay. Maasha Allah tabaarakallah. asxaabi waa ujeedaa. Maasha Allah asxaabey waa adigoo gacantaada wax walba ku samaysan kartid. meelaha adiga yaa laga soo siisanin garacad. haddana waxaan oo bilaabanayaa cashirkeena labaad. bariiskan isku kariska gabar walba way kari kartaa laakiin qaas ahaan waxaan aniga u wadaa wiilasheena Soomaaliyeed ama walaalaheena ama asxaabteena dhammaan. waxaan rabaa inta singalada ah oo familkooda la joogin oo meel walba iska jooga meel degan yihiin si qaas ay degan yihiin adigoo gurigaaga jooga inaad ku samaysan kartid. wiil saaxiibkay ka mid ah dhowr mar isoo i weydiiyaa oo asxaabta mar walba aan ku dhex jiro wuxuu dhahaa maad noo soo gelisid bariis isku karis sida loo sameeyo asagii hilibkiisa iyo maraqiisa isku karsan. marka maanta maasha Allah maanta ku soo sameeyay saaxiib. waxaan filayaa inaad ka heli doontid muuqaalkan uu ku dhaafi doonin. soo dhawaaw mar walbo. waxaan jeclahay
idinka waxaad jeceshihiin inaan ii sameeyo dalabkiina inaad soo dalbataan oo idin sameeyo maasha Allah tabaarakallah. haddana waa ujeedaa maasha Allah markaas ayaan ku darsaday yaanyaan soo shiitay cusbo yar aan ku darsaday inkastoo kaamirada aan keligeyga aan joogay guriga aan keligeyga aan duubanayay meesha iska saartay. haddana meeshan waxaan ku wataa waa ujeedaa xawaajiyooyin maraq digaag yar iyo beef masala iyo curry powder iyo maraq digaagaas aan isku darsaday iyo xawaajiga oo Soomaalida soo shiiday maasha Allah tabaarakallah. bariiska markaad kusoo shugaysid bariiska waa inaad soo dhaqdaa maasha Allah ama biyo kulul kusoo dhaq ama biyo qabow kusoo dhaq. muhiimadu waa inaad dhaqdaa maxaa yeelay burka uu leeyahay waa bur uma fiicna sababtoo bariisku wuxuu ka naqanayaa haddii kale bariis is haysta. markii uu soo karay bariisku kusoo darsaday maasha Allah tabaarakallah raali noqda haddii cilad yar nagu imaaday kaamirada sababtoo ah qofka la ii duubo ma haysanin oo jiray aan keligeyga duubtay maasha Allah tabaarakallah. haddana waa ujeedaa bariiskii oo maasha Allah 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo soo huriyay oo cunis diyaar u ah maasha Allah. waa kana kaliya waxaa ka dhiman inaad cuntid bariiskii oo diyaar ah hilibkii oo diyaar ah maasha Allah tabaarakallah.